وهجاك دقيستي halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacada Jowhar mujadeeda 89.5 megahertz Jowhar shabeellada dhexe shabeellada Soomaaliya dhageystayaal galab wanaagsan goorahan oo kale dhageystayaal waxa ay nooga barateen inaan idin soo gudbino tartanka ka socda garoonka Shongale Stadium ee degmada Jowhar tartanka oo soo qaban qaabiyay maamulka degmada Jowhar ayaa loogu talagalay dhalinyarada ka yar da'dooda 18 qaar kamid ah horiyaasha isboortiga ee idaacada Jowhar ayaa ku sugan garoonka ayagoona si toos ah loogu soo tabin doona haatan waxa si toos idinku xiraya horiyaasha ku sugan garoonka Shongale Stadium halkani waraadiyo Jowhar kuna soo dhawaada timinta wasa wali waxa soconaya tartankii isdhexgalka bulshada ee ka dhacay Shongale Stadium talay waxay ahayd maalin weyn oo aan baranay talin da'yar ah oo mustaqbalka laga yaabo in guulo waaweyn ay ku hogaamiyaan maamulka Hirshabeelle hadii ay xalayd xulka Soomaaliya hadii ay xalayd kooxaha ka dhigta degmadan iyo kuwa dalkaba maanta waxaynu diyaar u nahay inaynu baranno kuwa kale waata sababta kubadda cagta ay u tahay kubadda cagta waata sababta kubadda cagta ay u tahay kubadda cagta waata sababta ay dhalinyaro badan oo guriyahooda iska joogay ay barnaamijka ugu soo baxeen oo ay diyaar u yihiin inay daawadaan ciyaartan aadka u adag belaon dhawaqa siriga goobad ee garsoorka waxaana kulankan isku fuusaanaya juwartii saxad oo ka socda xaafadaha diwaad iyo dayax oo ka socota kulmays dayax iyada ayaa yeelan doonta baaska koobaad ee kulankan وهي صاحب اليوم بنتي توسكا يا مبتغل دياح كسعودة حافظة كل بيس هاي كنت ملازقة إساءة جامعة سيد علي إسماعيل علي أحمد حاج وإسماعيل أحمد حاجي سيد نور محمد أحمد شاعر سليمان باسكي ورثايا الليبي كنت بناك أيوه بعد وحين نقول إيسا قاعكتور سعنا تولاك أيها سوينيس وترتكان هدى وترتن لو خبنا يودا ليرادا تدبئت من جرادا دقمة جوار هو أول لغاية بي خاركوت حتى إليكي ماذا ديغانو إيو تولوي نوستي ماذا دقمة جوار أيكو بدو وقع إسكا مركر ودايا ugu dambay banaanka waxay noqonaysaa gacan ka tuur ayay noqonaysaa saambana samaynaysa waa ay sameeyeen markale gacan ka tuur daqiiqad kasta ayaan filan karnaa mucjiso daqiiqad kasta ayaan filan karnaa wax naga yaabiya daqiiqad kasta ayaynu arki karnaa wax annaga oo dhanna fajac geliya wax sababta kubadda cagta ayuu tahay kubadda cagta iyo kubadda wayradka goolka dayax oo banaanka isku day waxaan oo wanaagsan ayuu sameeyey Siid Nuur Maxamed wuxuu isku dayay inuu goolka keeno hase yeeshee ma dhicin wuxuu noqonayaa tusaale aad u wanaagsan uu noqonayaa weliba ciyaartooyda kooxda dayax oo ka socota kulmays markan waa saxan iyo markeedii attack bay noqonaysaa waana kuba halis badan laakiin ugu dambayn waxa dhaxda u xirtay Axmed Shaacir oo banaanka u saaray waxayna noqonaysaa gacan ka waa ay sameeyeen markay saxan ugu dambayn dayax ayaa saxan banaanka ayuu u baxday kubadda waxay tilmaamayaa garsoore Maxamed Kukaay inay tahay Bilsoone weliba iridka goolka ah
kaayo wadna qabad ku noqonaya dhamaan ciyaartooyda taageerayaasha kooxda Dayax oo ka socota kulmays Umar ayaana u taagan Umar oo lambarka 9 wata sahanna matalaya waa istoosinaya waliba isqaabeynaya haya Umar waa ku soo warka goolka oo dambayti gool haya kubadda banaanka u saaray koona gool haya jamac lahaanti halis bay gali gaadhay kooxda Dayax haya weli sahan walo diibo durbadiiba saaxiibkii 26 kii ayaa ku soo xiray waana iriska goolka obobo qalad ayay noqonaysaa waxaana loo dhigayaa kooxda Dayax waad moodaysaba in waqti xaadir kale ay la kulmayso weeraran rabsheeyay difaaceeda il capitano tabtaki Dayax torkayu isku jafay wuxuuna diyaar u yahay in ciyaartiisa uu sii wato kaarkii digniinta ugu horeeyay ayana la bixiyay waqti xaadirkan ugu dambeyn Dayax iyada ayaa laga sugayaa ciyaartooyda Dayax inay kubadda ay soo ciyaar geliyaan alla soo turiyay ugu dambeyn walla ku dagaalamaya qadka dhexe haya waxa xariiftamaya Ahmad jidkooya adag ayuu la kulmay mooye wuxuu sameeyay isku day way hubaal waxa in tartanka maalintii ka dambaysaba uu sii kululaanayo oo aad moodayso in koox kastaba ay iska soo qaabaysay halkii ay isleeysayba daciif ayaa ka tahay inkastoo shalay kooxdii ka socotay xaafadda Balguri ay muujisay waxaan macquul ahayn bay macquul ka dhigtay waa tii Wayama oo gool haya ahaa uu keenay goolkii guusha markan sahan توقفتني قصوري محمد هيني وفي حاضر أنا يلا يعيق تويدا صار يجا أيام لبسوا جيا فقط هذه سوى وأنا برتمع جوكا وأنا برتمع جوكا وبدأ بين وقتها لصوتي يومك وصحن ugu dambeyn gool hayaha ayaa kubadda gacanta ku dhigay ee kooxda Dayax جماعة صاحبي استمع ayaa laga sugaya kubadda inuu soo ciyaar geliyo marka waa ka Dayax oo duulana Dayax oo dagaalamaysa Dayax oo ay ka go'atahay in لكن ما كانت وحيله فأيام النحيالة هو أودي يرسم بإلي هاد يجر سوى عنها يكو بدأ الله قدقا وأيها وأيها تحتسون بين قريسة سيدا أوتما بينه على وضع عياسة maalin kale soo weeyo ugu dagaalamaya shaqada istaadka ayaan tawqayal u dhacay garoonka xaafadda kulmay tanka ayaa u muuqda inuu yahay mid aan istaahilin in laga maqlaado waayo labada dhinacba waxay soo bandhigayaan kubad kulul oo waliba dardar iyo firfircooniba ku salaysan dhiig iyo tamar cusub ayaynu arkaynaa daqiiqadii ka dambaysa هيا تعكتوا Dayax ugu dambeyn kubadda waa la suuqay ugu dambeyn waa laga soo difaacay kubadda ana bayn noqonaysa xuquuqda sahan da'irtii sahan loo dhigayo
tartankan waa tartan loogu talagalay isdhexgalka bulshada waxaadna moodaysaaba in aan ku baranino ubaxyo badan oo u keedsoonaa degmada Jowhar dhalinyaro firfircoon jir ahaan iyo maskax ahaanba diyaar u ah awoodahooda kubadeedna ku soo bandhigaya Shongala Stadium kuwa aynu daawadayaal ka nahay ayaa markaa wasahan oo duulaan ah ugu dambayn dayax waa ay soo difaacday oo qaladtay noqonaysaa kaarka digniinta ayaana la siinayaa kabtanka kooxda Sahan ninka la yiraahdo Ilyas ayaa qaadanaya kaarka digniinta kaarkii digniinta ee labaad ee kulankan in la bixiyo intay socoto ciyaarta waa sababta ku leeyahay waxaynu daawanaynaa ciyaar ka duwan midii shalay waa sababta aan ku leeyahay kulanka waa mid aan la saadaalin karin xitaa waxa uu ku dhamaan karo waayo waa weerar iyo difaac oo cid kastaba markeeda ay gambaraysaa kubaddu waa joog sare ugu dambaysay Axmed وديع وقدام بين اسماعيل سوى وكسو إري صاحبكي عمر ديع هيا الكابيتال إلياس وقفوا على هنا يا قرابة البلورية marka wadaya waliba waxaad moodaa duulaanka inuu dhinacyo badan ka imaanayo maxamed isaga ayaa tilaaqaynaya maxamed waayahay maxamed maalintii labaad oo toddobaadkii qadacyo garoonka Shongala Stadium ka oo loogu talagalay in lagu barto dhalinyaro badan oo xafajoog ahay badan oo hibada faruuliga si fiican u yaqaanay hatta yeeshee la waayo cid ka faa'iidaysata markaan Sahan guulaan oogan ayaa ku socday inkastoo kubadda ugu dambaysay uu tanaa ka u baxday marka kubadii waa la soo tuuriyay Sahan oo weerar ah waliba Umar laba ka hal ugu dambaysay gool hayaha kooxda ayaa waxaan gacanta ugu dhigay kubadaasi ana uu soo ciyaar galiyay madaxayuu ku dhigtay kabtanka Sahan sidoo kale ciyaartan kaga macmuuqanaya Sadiq oo wata lambarka 6 marka waa Sadiq qalad baa lagu galay laba ka mid ah ciyaartoydii kooxda Sahan iyadoo kaarka digniinta aan loo taagay waqti xaadirkan Axmed Sahan maalintii ka dambaysa xaalka waa uu sii adkaanaya oo waxaynu arkaynaa ciyaartii ka sii dambaysay inay sii kullaanayso marka waa sharma arke oo u taagan tuurista Pessoa oo ay heshay kooxda Sahan sharma arke waa ku heray kubadda ugu dambaysay laakiin gool hayaha kooxda Dayax Jamac Siid Ali Moha ugu dambayn madax ayaa looga soo jawaabay kubaddaas
كان مركان waxa uu taagan lamarka labaad ee kooxda dayax oo soo tuuray qadka dhexe kooxda dayax ayaa ciyaaraysa lamarka labaad ee kooxda sahan oo ka socota xaafadda Hanti Wadaag number 9 waa Umar dayax Maxamed Hussein waa isku soo saareen kooxda sahan Abdullahi lambarka toddobaad ee kooxda sahan Abdullahi waa uu soo dhigay waa uu soo saaray cross laakiin waa uu balan ku baxday waa eber qaybtii hore ee ciyaarta u dhaxaysa kooxaha dayax FC iyo kooxda sahan oo ka kala socda xaafadaha Kulmis iyo Hanti Wadaag waa isku baaseen kooxaha dayax lambarka afraad ee kooxda dayax midka lagu magacaabo Maxamed Aways garab ka midig Elias ayaa raacaya kabtanka kooxda sahan Maxamed Aways waa uu baasay lambarka 8 Maxamed Hussein qadka dhexe Maxamed Hussein waa laga qaaday kubadaasi waa iska soo saareen daafacyada kooxda dayax Maxamed Hussein qadka dhexe waa uu karoosay garabka bidix lagu dagaalamaya kubadaasi waa gacan tuur kooxda sahan ayaana iska leh labadan kooxood midkii soo baxa ama galabta badi ayaa waxay u gudbi doonaan wareegga xiga oo ah wareegga fardhamaadka ee tartanka kubadda cagta ee ciyaaryahanada da'dooda ka hooseysa 17 jirada garabka midig kooxda sahan oo weerar waa laga difaacay kabtanka kooxda qadka dhexe kubadda lagu dagaalamaya waxa moodaa kubadda qadka dhexe inuu dhaafeen labada kooxood ayaa ciyaaraya weerar iyo weerar celis markana waa Maxamed Hussein iyo kabtanka kooxda Elias waa uu ka soo saaray kabtanka kooxda sahan qalad ayaa loo dhigay kooxda sahan waxaa lagu galay kabtanka kooxda sahan garsooraha dhexdhexaadinaya ciyaarta ee Maxamed Deequka ayaa ciyaarta aad u taxadaraya maadaama labada kooxood ay ciyaarayaan weerar iyo weerar celis kooxda sahan ayaana markaan kubadda soo dhaqan geli doonta way soo dhaqan geliyay ciyaaryahan Sharmarke ayay waa kubadda halisa waa iska saaray goolhaya kooxda dayax Jaamac Said Cali kubad sideeda loo soo korosay ee si toos ayaynu goosha ugu aadeen balse goolahayaha ayaa nasiib wanaag kubaddaasi banaanka u saaray maahan koorna maahan kubaddaasi goolahaya goolka yaryar waa iska soo saaray markaan qadka dhexe sahan ayaa ciyaaraysa lambarka lixaad ee sahan Sadiq Ahmed Sadiq awdi kubaddaas waa uu qalday dayax ayaa markaan dhiidaysa dayax garabka bidix oo soo galay ciyaaryahanka garab waa uu cross qaldan ayuu soo saaray ciyaarta qaybta hore ayaa duula la socotaan tabinta tooska ah ee tartanka 17 jirada ee ka socda magaalada Jowhar gaar ahaan garoonka Shangol Stadium garoonka gobolka waxaad si toos ah uga socotaan idaacadda Jowhar mawjada FM-ka 89.5 magacaabta tilmaanu labada kooxood weerar celis ay ciyaarayaan ilaa haddana labada kooxood waa kubad weerar ah oo lambarka 9 ee kooxda sahan waa ula galay xariiqin 18 ula galay waa kubad handball ah kubad gacan ay ku taabteen ciyaaryahanada daafacyada ee kooxda dayax waa inay isku soo saareen waa kubaddaas waa la dhaqan geliyay waa kubad ha socota la yidhi waa laga diiday kooxda sahan laakiinse kubaddaasi waxay ahayd kubad ay gacan ku taabteen mid kamid ciyaaryahanada dayax markaan kubad gacan tuura waxaa tuuranaysa kooxda sahan wayahay saaxiibayaal tabintii tooska halkeedii ayaan kasii wadeynaa saaxiibayaal
وانا كوحاها سهني ولما سيدو كلا دياح مكان إسماعيل أيا أتاغن توريستا بنونيغان إسماعيل وأكو حري الله إرسك قوكا صدق لكن وحقعدت كل ذي يقولها أيها كوحدة دياح جامع أيا كوما دعنت كل ذي إسماعيل أيا تربني به محمد واكو دقال لمية نصوركا أيا دوقا كيكي كايو كدقال إني يلانا يسو كوحدة سان عمر أيا تولي برونيغا سليمان أيا دقاقيا وقتي حاذيكا أو قربكا خسو قايا وليبا سليمان كما دوائرت كقولكا هيا وليبا كوحدة دياح وقدم بيتي قول هيا قلنا كوصو صاري كوحدة الساعان لكن وحيا هيد ويرا الخليج بدن أيوها وليبا إلي دفاعية كوحدة الساعان waayahay marka waxay noqonaysaa piisone oo ay leedahay kooxda dayax oo ka socota xaafadda kulmays mahad ayaana u taagan mahad darboos ayuu ku riday shabakii kooxda sahan inkastoo aysan ku aadin laakiin waxay ahayd mid halis badan markaatu kubadii waa la soo ciyaargeliyey axmed ayaa ka daba xawaareynaya oo kooxda dayaxa axmed wuxuu ka mid yahay isaga ragga sida weyn indhaheena ay u qabanayaan cabdullaahi ayaa durbadiiba kubadda ku soo xiray cabdiwaxid ayaa ku dagaalamay laakiin ugu dambeyn dayax axmed ayaa ballanka u saaray gacanka tuur ayayna noqonaysaa شيعلي أيانا سمعنا يقع كتوركا علي وأودي بكبدا مكهو عمر لكن ما حد أي جواب دقنا كبعي كبدي أنا فلنا كوسو صاري إسرائيل أي كيسا كسو هري بروري مكهو إسرائيل محمد أيو لا يري دربليبا إلا إيا فلنا كالله أفتح كعكتور أيها نقول دون صاحب يال أحمد أيها سامين دون كعكتور أو ضيع حيلا ضحي أحمد وانا لقى سقيا دربري بوا سمي ماذا يقول في إسماعيل أيها سجواب دقيقة كسر بحيه فايو كنيقى كبدي إنا يوبعد بلناك أو أيتاي كعكتور محمد أيها كعكتور كاسي أو ضيعها محمد وأوسيقع كتوركي أحمد أياد كبدي كسر حري وانا إيدك قولك هيا إسماعيل ولو الله قد الله ميا قلنا كايا الله صوصاري ويحي صاحب الله ولو تمشيتك كهاي حياة وايد ولما سيدا الشلي تتكى حتى لما قدي وراعي ولتوتا والشلي في قصد لما أصرنا ماتك عنده وحأصب بحدا يكوحدا بالقوي إذكم إذا عياتو إذا كوحدا السهان أي وقت حاضر كان لبكي الله عبد الله وقيبك أهارج السلوة عن أول أكثر خطة به كذمو قنعي عبد الله ودقال انت عبد الله وددا شيء عبد الله وحدنا مجسينا تعي هدو عن وراكسن أصي شيء وقت حاضر كان لوكا يلا عبد الله وأي هاي صاحب أيال ولكن انتي تسكى أيال الله صوتان
qaybtii hore ayaana sidaasi kusoo dhammaatay saaxiibayaal. Maxamed bal ka waran aniyow qaybtii hore ciyaarta labada dhinac ay soo bandhigeen waxay ahayd mid aad u kulul oo weerar iyo difaac. maxaa dhici kara isleena qaybta labaad? لكن نتيجة هذا ما هو كرو ماشي معناها كوحدي ودي دونت بوشة أما كوحدي بوشة كلام دونت لكن كان طلبات عيارتها يعني نسرع الدونا وتمين تصوت كأن نقصنا ليستياشن هل كان ينصع الدونا يعد الجوع موجود FM كسرية اللي سجال اللي بعشان مجارتي كان طلبات يعني يجيبوا وصل الله الدونا هذا مركان بنكي فرطمة يعني يقول لنا waayo haysayaal waa isku soo laabanay qaybtii labaad inkastoo qaybtii hore labada dhinacba ay ku heshiiyeen barbardhac eber iyo eber ah haddaba waxaa la sugayaa waxa dhici doona qaybtii labaad qaybtii hore waxay ku soo dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah kooxda dayax oo ka socota xaafadda kulmis ayaa bedel samaynaysa cali ayaa laga tuuray ciyaarta waqti xaadirka cali ayaa laga tuuray soo galay maxamed ayaa ciyaarta ku soo tiiray oo wata laba kashanaad ismaaciil ayaa sidoo kale la bedelay ismaaciil ayaa sidoo kale ciyaarta ka baxaya iyadoo uu soo galayo haashim ayaana soo galaya markaan dayax maxamed ayaa soo tuuriyay proiga ugu dambayn waa banaanka waxaana la dhigayaa go'ka kooxda saxan ismaaciil bolaya ismaaciil ayaa kubadii ismaaciil ayaa laga sugayaa soo tuurista proiga ismaaciil waa uu soo tuuray durbadiiba marka waa Ilyas Sulaymaan iyo Ana iyaga ayaa ku dagaalamaya ugu dambeyntii Cumarow ayaa cirka ku tooy Ana wali waa lagu dagaalamaya gacanta tuur ayay noqonaysaa saaxiibayaal oo ay samaynayso kooxda dayax ee ka socota xaafadda kulmays Axmed ayaana koonada laga sugayaa inuu tuuro koona durbadiiba maxad ayuu la ciyaaray hase yeeshee waana lagu xiray cabdallah ayaa banaanka u soo saaray cumar ayaana madax ku dhuftay garsoorka dhawaaqa seriga waxaa dhulka yaalla mid ka mid ah laacibiinta kooxda saxan oo la yidhaahdo cumar iyo labaatan lacan waxaad moodaa inuu yahay marwaxadii kooxda saxan waa ciyaaryahan lug furana oo aad ku arkayso goal to goal ismaaciil ayaa u taagan cumar ayaa u taagan turista broligan cumar ayaa laga sugayaa Anow oo isaga qayb ka ah ciyaartoyda sida weyn uga muuqanaysa kulankan bal laga sugayaa inuu soo tuuriyo Cabdiwaaxid ayaa ciyaarta ka baxay iyadoo uu soo galay Shoobay oo talo maxaad la fadhisay Amiin ayaa sidoo kale ciyaarta ku soo fiiray mahad ayaana madax ku soo dhuftay kabitaano mahad proiga Amiin durbadii mashi caley dayax difaacyadooda waxaad moodaa inay yihiin sidii silsiladii oo kale oo ay adag tahay oo ay garan la yihiin ciyaartoyda kooxda saxan hor ay u jaraan kuwa saxan baa sidoo kale waa sababta ciyaarta ay u tahay barbada eber iyo eber ah weli si kastoo duulana la isugu soo qaado labada dhinacba aad bay isugu adkeynayaan koona
kooxda dayax mahad ayaa laga sugayaa soo tuurista broliga mahad ayaa soo tuuri doona mahad baa laga sugayaa tuurista broliga mahad waa koona badatay ma wacna waa la soo tuuriyey dirbadiiba shiicale ayaa madax ku dhuftay weli waa ka axmed aways ugu dambayn cabdullah isaga ayaa geedka u galay broliga waa kaleesko abad ayaa kubadda shubay xaraga ayuu ugu dhigay saaxiibkii amiin ugu dambayn waa kii wadaladeeda amiin waxkiido ay ku qabanteen waxaa soo martay fartada hadiya wax la fita aanan lahayn sahal inay bedasho natiijada ciyaarta shubay waa sameeyey gacanka tuurka iyadoo aad moodaysa inuu ugu gamayba sidii koonadii oo kale shubay durbadiiba jawaab degdega marka waami ayaa cumar ugu dambay Salmaan kubadda erkay jirta waa joog sare waa lagu dagaalamayaa ana ayaa sal ku dhuftay marka waa Maxamed weli waa dayax ugu dambayn gool ayaa kooxda Sahab ugu dambayn dayax waa sidii daadkii oo kale ay soo fataysaa laakiin marka tan waxay la kulmaysaa muujado difaac oo aad u adag midba hore haddii ay ahayd mid ay fataadoda waranadu qadaw ay ku wasacan iyadana markeeda ayay ka badaysaa markaa shubay kacakasuur ayuu sameeyey qalad ayay noqonaysaa صديق أيانا خلق كسر له قول أيه كابتن صديق أحمد أيانا كارك دقلين تعالى سيئو صديق قول أيه خلق كاسي إسماعيل أيانا أتانا تورستا بيزوراهن عملات كاني حركة والله حرة وحنا أتانا إسماعيل بلغ سبيا إن برورغا أسوعي يرقليو إسماعيل كمانان بعدفتا أتاغن إسماعيل كمانية دكفر حي إسماعيل وأوصوني لبرورغا دربني والله في بناكا قول كايانا وضيا أو كوحة ضيا أيان لغا سبيا سوتوريست برورغا أحمد بن صوتوري أحمد بن عدين مكر وعمر سهل صديق الكابيتانو صديق سعيد أيوب كهري آمين هذا galabta aad bay xaaladu u adag tahay oo galbi horeeta waa ay ka duwan tahay maadaama aynu arkayno kulan aan kubaddaba la isku neefinayn mid labada kooxoodba ay nafta isku xirayaan mid labada kooxoodba kooxda kale ay doonayso in guulba ay ka gaadho maadaama tartanka uu yahay kooxda وكل أبصر يا شبيه والنور حاضه وأكتفى قحدة إيه عليه قربنا فايين غنيسة زي أحوانا اللي برسوبية ولوا كنت كيدا مهات وأكسوه
عبد الله يا صديق وقراي الله أنا كايو ساي فروري عبد الله وحين نقول ساعة دعكتور محمد حسين أي سمير يدعك جب سعيتي قول كايا ودقيا كوحدة السهان جورتي سهان بيو حريف كما ينقاتان هو ضيح يكون مثل صدوقه علي سهان وجنبه وبنا كوانا قاعد كتور محمد حسين أي سنة قاعد كتوركا مع محبوسة أحمد هو ضياح شوي مركز محمد حسين ضياح ضعف خطر محمد اويس امين اياكم دبنا كوسو صار يكستو ما عدو كسو هذا مركز كما هاد وقدام بين بنانكا وعليكم بدافع وهي ما المفسد يصير العيار تقدم سوء عيار كريه وقاعد قال يجي استفاد تاسيا يلا كتوين كونكا أنا أي عيار تكبحيا وقت حاضر كان وكم إذا رجع كذا وين وجود لما يجي تأير كقول الساعة محمد أويس أن يصير وكان عيادك ضحي فيصل أن يصير وكان عيادك الصقيري لابد أن نعمل بدل ليس منه أصدت أن يصير وكان عيادك كورة القصة بيري ولما كوحدة ضيح مثلا مركوا فيتاو أي ضيح سليمان عبد الله يعطينا كوساري عبد الله مركز سو يصير هو طيب بديع وحنا نسكت اثنين وويل هادوير زبير حتى ما مدى وحنا قيب ضيع مد طيب اشركوا كان فيصل لما كان وجنبين وقصيرين قصورك ضيع حيا يا رئيسه ولا بس يا امبرو يا يسوع يا جيسو ضيع يلا بس انت بدا يسوع يا جيسو محمد ايا راو تاغن محمد وكسو إلي وانا مرتبع قراقة وقدام بين روحنا ساعة وانا كايهوك عليك عكتور بين الغريسة انت عيانك وطعين استاذي معاك شوقك يقولوا بنتاني وحالكينا عيان كل سنة وهنا بيا دفاع فكان كذا عي قبل عيسو أخذ أيان الله قد قال يا حالكان محمد موسى أي عركة كتير فروريا وقد بيقع كتير أي رئيسة شوبي أي أصوين يقع كتير وحكر وتاهو دي سايبكي وقد بيوا فنانك قع كتير خيات شوبي استقع أيان لقى سويا إن فروريا وسوع يرجليو عبد الله ما يلا كينو قدام بين ضياح
ayaa samay doona shoogay ayaa loo dhiibay shoogay nin gaabanoo garbaha ka dhisay marka waa Umar sahan Abdullah saaxiibka ayuu niga amiin laakiin masha Allah ya mahad ayaa kumada banaanka u saaray isaga ayaa kumada banaanka u bixiyay inkastoo ay ahayd mid khatar badan haddana laakiin macda ayaa aada ugu dagaalamay shoday iyo gacan ka tuur boqorkii gacan ka tuur ka dhe shoday waa uu ku xiray oo qalbe تعكتر بين غوي صدق يحصلي كهان شتولي وقدام بين معاد هاشم أيكم دا فلا كوسو صاري أي سليمان كم تقرأ كخيمة يسوي بعض وهذا بدل سليمان ما هو حوارين يا سليمان أوه فإنه هنا يتاكل الله بقى يقوح عنك يا صحاب جوتي سهل إيجا يا سورة شنا برونيغان سهوا قد يسن حفظة جودات وحيقيس كفايتوها قديمي أحيو بكمر الجوهر حتى روح المجنة يعني إيجا عيتان جوهر آدوان مكان ومحمد عمر عياسة وبعد بناك كذا ساري إنك تقعدوا حواري محمد ذاتا محمد هوفا وأكو زوعي برونيا بناك لكن إسماعيل يقول هيا هي مجلس عشيب صاحبك أيودي وبدأ برطمان روحا كوقت حاجة كان أدين حياتا بدأ خدي كنت بلطة لأنه لما بدأ قوحات ما يسكوك هذا يان ورنكي مانا يا دنعي كلا دون وقلقل بيين يدفعين الله بدأ قوحات محاد الكابيتارو ضرب الله قول هاي هي بنا كوسارة كبدا إنك سوايا كحيث بدأت وحليش فدن دي حيانا لوري كرتو قلقا هدي قول هاي أوسرها الله هاي وقابل الله بخي جيرتك وعلى الساعة تتكال سرونت وحوقرا ومحمد عليه لكن أنا تسكنت عجيب وهي ومقع عجيب هيا بركوا ضيع وقدام بيسان فيزال مكاوا شوايه صاحبي ايوه يا لكم دواكاي قربها في نقول صاحبي يلا احنا ضيع احمد انا اللي دسوغيا انكم دا وسوعي ارجلي احمد اوصوتو البرونيغا دربني بمحمد مكل لكن عبد الرحمن ايا فناك كنسان هنا عطونا ايا سيروك لقلت ايا مدفع سبي سؤيات وعرفتاي وحكيت بدن طوري الساقة محمد حسين قاعد كتور بدو ايا كده دبرنا كوبحي وانا كونا أي نغنيسة وأي ليس كوحدة ديان تلمنو عيارتو waxay fududahay gabagabo ciyaarta kaysan ku dhamaatay waxa rajada ama lasniga ama goolkulan lahayd hadii labada kooxood ay wax gool leeyma waayaan ciyaartu ka baantahay عاديات لكن لابد كوحود كوحد فتوحد مدين دفاعي لا يعادوا حجي
سيدا أي كل ما تريد ريال أي نبأخور شاهي هذا مداما خب يهرب أي كاب كل تتكلم كل ذات أي لغوك بعيدون صاحب يال كل ذات أي لغوك بعيدون صاحب يال كل هذا يلا بكره بعيدون صاحب لنا فارغاه انت سو لبنا نعبا سو بندقين لبنا نعبا سو بندقين عيار قدس ولا يسان ولا إيا دفاع حتى وحمو خروف وحمو قريسة أي كلنا اليوم قل كل هذا العالي محكلا ممكن يتكلم الجلكولات ونصيب الجلكولات كوحهم لما جفتوا خطر أنا حي والله قرب يجري كل يوم أنا يقول بنسيب الجلكولات وأنا طول عالمنا يكون يسير الجلكولات كوب أبيولوجي بيولوجي جامبيولوجي يعني هنا بدنا حالنا يقولوا الجلكولات يبغوا كل ذلك ثاني الجلكولات نصيب ولا لبدا كوعد ممكن نصيب كساعدة مش حقه هذا الدكتور معنوف لكن هدي أنا أقول له لبدا كوعد هستان مثل هو رجع إلى مثل إنه الجلكولات يقولون كسوحة له كوعد كوع يعرف مجا هاي كل لبدا كوعد يجري سوى السمعيها وعليه صوت المركب بجان لكن كل هذا نصيب له واحد وصلت كبدا حتى وحمر لبقى الصيالين كانوا وحكسر بعدها مدام هلكا كدا ولا يكون لها دوابك وعن كدا ولا عيار كسر يسر ورارية دفاع وقدام بيتي نتيجة وحلو قرى بعدها قول كلات أي لغو قرى بعدها صاحب أيال أنت سنو وحي أهي ما هي عجائب ليه بس دقيقة لما تنادبوا واتي وياما وقهايا إلو صوبحي كل كبوشة سيئة كوحدة فاقوري ما أنت ساميو نصنا نصدق مني كتا وعنك نفس مالو مالين بانك دم ستفتن هو ستكامل متكيسو ما أنت قوشة حاجة تنكو مرتك وحي الوريق دونان أما وحي راعي دونان كل الشلا يصبح الوريق أفنمات يوجد دونان marka kulamada xiga ama ciyaaraha kala dhiman labada ciyaaraha kale sidaan waxa la filayaa koox adag inay wada dhiman yihiin xaafado badan oo adag dhiman bulsho qofka dhiman marka kulli ciyaaraha waa ciyaaraha aad u xiiso badan waxa nasiib dara ama qof nasiib ku xumaataan ciyaartaan ay qofkiisii aad u weyn markaan waa amiin iyo gol haya jaamac iyaga ayaa la isaga dhaxay ciyaarta iyaga ayaa go'aan kama dambaysta akula ka gaari doona maadaama ay tahay gol kullaad wax kasta ayaa la filan kartaa amiin أقول أجل مستحال وابتدى أي كتب تجمع رجلي هيا آمين والنبول قوة يعمله ولما سنة يعمله إنت جامع وهو ويين السماء وتعالى آمين عليك آمين ريغوريس وين فكان محمد حسين إياهي هي ولما كده وقال محمد حسين أي ضيح وطوريا ساعة ما دام قلت بحوث الله بالأمين محمد حسين ضيح عبد كل ميس وفي كورات وعي بالله بين سهل ما كان ضيح وكل مسكسة هيا محمد كذا داعية تويدي حتى على قاعية خلخلية محمد تكتر بووقي لكن كما دعات تسير غير قرطة بلا ملها انت
ayuu ku maxamed amiin ciilka ayuu ku jabay maxamed amiin kaasina waxay caanka kusii cakiraysaa taageerayaasha ciyaartooyda kooxda dayax ismaaciil sahan juyarkii sahan iyo xagga guusha ayay dareemayaan carafteeda uduga guusha ayay cafirayaan maadaama gool iyo waxba ay ku warkacayaan rigoorayaashii ismaaciil jaamac face to face waa weji ka weji ismaaciil gool jama isaga ayaa firqay dayax isaga ayaa dib u soo nooleeyay hajada taageerayaasha kooxda dayax oo ka socota kulmay jamac u xariif leh waxaa tahay kabiir aan la heli karin waxaa tahay kabiir waxaa tahay xariif markan waa shikmuur oo dayaxa markii waa bareejo dhinac kastaba ciyaartu waa bareesho halqabasho halna waa laliyey marka waa sheeknay wuxuu imtixaan baa ku horyaal si xalaga ay ku darto weliba aragti iyo weliba sidoo kale injineerey ay u raacda ayuu sheeknuur gool ugu bedelay kuwadaasi inkastoo ahi iskuday uu sameeyey laakiin iskudaygiisa waa uu guuldaraysta ugu dambaysay markan waa cabdiraxmaan weliba wani u galay nin caanka ah degmadan maqraabuna oo ahaa haliya markaan cabdiraxmaan isagana waxaa la dhihi karaa istixaab baa horyaalla waqti xaadirkan cabdiraxmaan afra iyo jaamac oo weliba midkiisii ugu dambaysay steebgaray hayaa golyato cabdiraxmaan si xaraga leh ayuu isagana awood ugu yeesay in kubaddaasi uu gool ugu bedelo gool ayuu u bedelay axmed shaacir kooxda dayax axmed shaacir iyo weliba golhayaahay iyaga ayaa suuraysan doonaan annagana waxaynu tibiyaal ka noqon doonaa wax weliba oo ka dhexdhaca axmed shaacir golyato weliba waa nin iska xaragaynaya axmed shaacir iska raaxayso kari waa waktigaaga sobey sarmaarke ayaa wakti xaadirkan tuurista rigoorada waxaad moodaa in xitaa taageerayaasha dhiigga u kaco waxay bilaabeen sawaxanka in magaxiisaba ay ku qayliyaan ama ay ku heesaan waa ay wakala saateen oo ay dheen waa kuu qalsoon lehe ina shoobeeyo gol loogu bedel sarmaarke magaxiisaba cajiiba haya sharma golyato sabaysi waana wanaagsan ayuu awood ugu yeeshay in kubaddaasi uu gool ugu bedelo sharma gool ayuu u bedelay kubaddaasi maxamed muuse ayaa u soo baxay kooxda dayax ee ka socota caabada kulmis maxamed muuse caanbaa ka socday waa taageerayaasha fadhiga waa u diiday maalinkan iskama daa ciyaartooyde taageerayaasha موسى محمد موسى محمد موسى يا محمد موسى سرايين وقوش أقول عليك بعض الصحن آهي يا قاسم ملوعنا ورقصك قسم بعيك بعض الصحن سوحنا يا رئيس قسمي قودا عن قراك كجيس يا الصحن وحاي ستة
dabaldegayaan oo farxadda ay la qaadanayaan daymakoodii waxay leeyihiin waxaa tahay geesi waxaa tahay haldoor midaan ka bixi doonin xusuusteena iyo xusuusta taageerayaashaba weli waa ay soconaysaa arrin hore ayaa dhiman weli hal tuurasho ayaa u dhiman ayaa la leeyahay kooxda dayax hal tuurasho ayaa u dhiman dayax hal tuurasho ayaa u dhiman hal tuurasho ayaa u dhiman kooxda sahan يا جماعة صديق يا وصل بحي الكابتن وصديق وليبو واني كلام بكتبنا ده علاقة على الساعة صديق 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 قول يا صديق كده عليك وصل عليك على الساعة كده عليك وصل عليك على الساعة وليبو يقول يا dayax inkastoo si wacan oo wanaagsan ay u dagaalantay oo ay u dadaashay haddana rigoora sideedaba waa nasiib ee saxan iyo ayigooda waa ay damoldegayaan weliba dalalka geeska gees ayay golhaya bal ka warniyo dareenkaaga ku war maadaama guul ah u horseeto kooxda maxamed cali cabdillaahi guulku waa rajaynaya wanina yaas ninka waa wadan iska xamaasadaysan masalaayi dalka ida waa dhigteen ciyaartooyda kooxda saan bal ka waraniyo Tilmaano marka hore ambali aan leeyahay kooxda saan oo ka socota xaafadda Tawreeg oo soo gudubtay wareegga xiga ee afartamaadka qatanka ayagoo kula biiray kooxda Baalgurkiya ama Gdaaya Baalgur oo ayagana shalay sidoo kale u soo baxay runtii waa ciyaar aad u weyn oo xamaasad leedahay ahayd labada kooxood waqtiga lagu talagalay garoonka wuxuu sigeli waayay inay gool iska dhaliyaan oo barbadhac gool la'aan ay ku dhameysteen oo sidaas ugu soo gudubtay in la aado gool kulaati labada kooxood inay ciyaaraan kooxda midnimo ayaa kooxda dayax oo ka socotay xaafadda kulmis ayaa inta badan rajo badan iska cuntay oo ay gool kulaadida ay wax ku bedeli kartay ama ay ku bareejin kartay runtii kooxda sahan oo inta ka socotay aad ayay ugu faa'iideysteen ciyaaryahanadooda inta wanaagsan ama inta ay sida wanaagsan ay ugu faa'iideysteen marka kulli waa ciyaar aad qurux badan galabta halkan ka dhacday marka waxaan leeyahay ambaliyo kooxda sahan oo ka socotay xaafadda Tawreeg sidoo dadka ku socda ka warniyo muslim tan oo qalqaya soo bixi doona maalintii ugu horeysay oo aan bilaabin runtii horta qatanka faanol farika ma qodno kooxo badan oo adaga dhiman xaafado badan oo wiil aan la arkin sida xaafadda booliska oo kaleente oo waayihii dambe ciyaaraha kubadda cagta aad caan ugu noqotay si fiican u ciyaarta kooxo kale ayaa dhiman marka kulli kama hordhici doono taageerayaasha waxaan ku bogaadinaa inay garoonka sidoo kale inay yimaadaan oo daawashada ciyaaraha dhalinyarada kubadda quruxda badan soo bandhigayaan isdhexgalka iyo ceelka magaalada iyo dadka degmada degan siday u muujinayaan runtii ciyaaraha dhiman waa ciyaaro xiiso badan kulli oo arki doona ciyaaraha noorsan labadan kooxood kooxda shalay usoo gudubtay wareegga xiga iyo kooxda maanta gudubtay waa labada kooxood oo keliya wareegga afardhamaadka u gudbay laba kooxoo kale sidaan oo kale la sugayaa marka waa arki doonaa insha allah saaxiibaya كميتي تاسكا ايضا كلا سعودين اذاعه الجوار وانا انت waxaa la socodsiinaya anigu maxamed cabdirasaaq waxaana mataanay ulaha saaxiibkay maxamed deeq oo isagana kamid ah qabiirada kubadda cagta degmada jawar walaga inta barnaamij